ma rumaysan lahayd in dilaa kaliya uu awooday inuu jilbaha u dhigo boqortooyadii ugu awoodda badnayd dunida, isagoo muddo 3 bilood ah magaalada London u beddelay qabri furan oo ay ka buuxdo ceeryaamo dhiig leh? Maxay tahay sirtan weyn ee ka dambaysay ninkii booliska u soo diray xubnaha bini'aadamka isagoo ku leh cadaabta ayaan ka soo qorayaa, kaas oo ilaa maantadan la joogo 136 sano kadib aan la ogaan wejigiisa dhabta ah iyo magaciisa rasmiga ah? Sidee buu ugu dhex lumay dadka isagoo gacmihiisu dhiig ka qoyan yihiin? Sannadku markuu ahaa 1888, magaalada London waxay ahayd xarunta ganacsiga dunida, balse gudaha magaaladaas waxaa ku dhex jiray nabar weyn oo qudhun leh oo loogu yeedhi jiray xaafadda Whitechapel. Xaafaddan waxay ahayd mid ay ku noolaayeen dadka ugu fakhrisan, jidmaradeeduna waxay ahaayeen kuwo mugdi ah, cidhiidhi ah, oo had iyo jeer ay ku dhex jiraan qiiqa iyo ceeryaamada ka timaada warshadaha. Saqdii dhexe ee bishii Agoosto 31keedii, saacaddu markay ahayd 3:40 ee habeenimo, 2 nin oo shaqo u socday ayaa waddada Baksrow ku dhex arkay wax u eg rundo dhar ah oo dhulka yaalla. Markii ay u dhowaadeen, waxay la kulmeen muuqaal argagax leh. Marian Nicholas oo ahayd haweenay dhibban ayaa jidhkeedu yaallay meesha. Luqunta ayaa looga jaray 2 jeer oo aad u xooggan, caloosheedana waxaa lagu dhuftay mindiyo aad u af badan oo hilibka iyo xubnaha gudaha kala jeexay. Tani ma ahayn dil caadi ah, balse waxay ahayd bilowgii xilli naxdin leh oo dadka London ay nolosha ka quusan doonaan. Iyadoo dadku weli ka naxsan yihiin wixii ku dhacay Marian, ayaa 8 bishii Sebteembar la helay dhibbanahii labaad ee dilaaga qarsoon. Annie Jaban oo ahayd haweenay degganayd xaafadda ayaa maydkeeda laga helay barxadda dambe ee guri ku yaallay waddada Hamburi saacaddu markay ahayd 6 aroornimo. Dilkan dambe wuxuu ahaa mid muujiyey in dilaagu uusan ahayn nin iska dilaya dadka, balse uu yahay qof aqoon sare u leh qaliinka iyo anatomiga bini'aadamka. Jack wuxuu Annie ka saaray minka iyo qaybo kale oo ka mid ah xubnaha gudaha, isagoo u jaray si xariifnimo leh oo xataa dhakhaatiirta London ay la yaabeen. Dhakhaatiirtii baadhista samaysay waxay sheegeen in dilaagu uu mindida u isticmaalayay si deggan oo xirfad leh, isagoo aan ka baqayn mugdiga ama qaylada dhibbanaha. Cabsidii ayaa hadda isku beddeshay waali, dadkuna waxay bilaabeen inay ka shakiyaan qof kasta oo wata boorso yar ama xidhan dhar dhakhtar, iyadoo London ay noqotay meel aan nabad lagu dhex socon karin habeen iyo maalinba. Magaalada London oo dhan waxay gashay heegan buuxa. Booliska loo yaqaan Scotland Yard ayaa soo saaray 100 ciidan ah oo xidhan dhar rayid ah si ay ugu dhex dhuuntaan dadka. Balse dilaaga Jack wuxuu ahaa mid ka xariifsan booliska. Ma jirin wax raad ah oo uu kaga tegayay goobaha dembiga, ma jirin dhiig ku fiday dharkiisa oo dadku arkeen, mana jirin wax markhaati ah oo sheegi kara wejigiisa. Waxaa la sheegay in dilaagu uu ahaa nin u eg dadka ladan, oo xidhan koofiyadda dheer ee madow iyo koodh weyn, taas oo u sahlaysay inuu haweenka soo jiito kadibna u horseedo meelaha madow ee aan iftiinka lahayn. Dadka deggan Whitechapel waxay bilaabeen inay sameeyaan kooxo iskaashi ah oo habeenkii waardiye ka qabta jidadka, iyagoo sita ulo iyo tooshash, balse xataa dadaalkaas kuma guulaysan inay qabtaan hooska dhiigga jecel ee magaalada ku dhex dhuumanayay. Dhammaadkii bishii Sebteembar, xafiiska wararka ee London waxaa soo gaadhay warqad la yaab leh oo ku qoran khad guduudan oo u eg dhiig qoyan. Warqadda dhexdeeda, qofka qoray wuxuu ku kaftamayay in boolisku ay yihiin doqomo aan marnaba soo qaban doonin, wuxuuna ku ballanqaaday inuu sii wadi doono jeexjeexista dadka. Dhammaadka warqadda wuxuu ku saxeexay magaca Jack-kii jeexjeexayay. Magacan oo ahaa mid cabsi iyo naxdin xambaarsan ayaa ku faafay dunida oo dhan, isagoo noqday magaca rasmiga ah ee dilaaga. Maalmo yar kadib waxaa kale oo soo gaadhay kaadh boosto ah oo uu ku sheegay inuu 2 dil hal habeen fulin doono, isagoo booliska ku jeesjeesaya. Tani waxay muujisay in dilaagu uu ku raaxaysanayo caannimada iyo cabsida uu ku abuurayo malaayiinta qof, isagoo raba in magaciisu noqdo midka ugu cabsida badan taariikhda bini'aadamka. Habeenkii 30 Sebteembar, Jack wuxuu dhaweeyey ballanqaadkiisii naxdinta lahaa, isagoo fuliyey waxa taariikhda loogu yeedho dhacdadii 2 dil. Saacaddu markay ahayd 1:40 ee habeenimo, Alice Stirayid ayaa maydkeeda laga helay barxadda Berner. Dilaagu ma helin wakhti uu jidhkeeda ku gogoyo, waayo qof ayaa soo agmaray oo ka caraysiiyey. Balse Jack oo cadhaysan ayaa u gudbay barxadda mitre oo dhowr boqol oo mitir u jirtay, halkaas oo uu ku gowracay Catherine Eddowes. Dilka Catherine wuxuu ahaa midkii ugu naxdinta badnaa ee abid dhaca. Wejigeedii ayuu gebi ahaanba jeexjeexay, keliyaha ayuu kala soo baxay, jidhkeediina wuxuu u beddelay wax aan bini'aadam u ekayn.
booliska oo daqiiqado kadib goobta soo gaadhay ayaa helay raad qoraal ah oo uu dilaagu kaga tagay derbi ku dhow halkaas, kaas oo u ekaa inuu dilaagu rabo inuu dadka isku diro, balse booliska ayaa tirtiray qoraalkaas ka hor intaan waagu beryin iyagoo ka baqaya inay rabshado dhacaan. Bishii Oktoobar 16, hogaamiyihii kooxda waardiyaha xaafadda ee la odhan jiray George Lusk ayaa helay sanduuq yar oo boostada loogu soo diray oo urqadmuun leh. Markii uu furay, wuxuu gudihiisa ka helay badh ka mid ah kelyaha bini'aadamka oo ku dhex jira biyo milix leh si ay u dhowrsanaadaan. Sanduuqa waxaa la socday warqad aad u naxdin badan oo cinwaankeedu ahaa "Cadaabta ayaan ka soo qorayaa From Hell." Jack wuxuu ku qoray warqadda in kelyahaas uu ka soo saaray Catherine Eddowes, badhkii kalena uu isagu dubtay oo uu cunay, isagoo sheegay in dhadhanka kelyaha bini'aadamka ay aad u macaan yihiin. Tani waxay caddaysay in dilaagu uusan ahayn keliya dilaa, balse uu yahay qof cunaya hilibka dadka cannibal. London waxay gashay xaalad waali ah. Dadku waxay ka baqeen inay xataa hilibka suuqa ka iibsadaan, cabsida Jackna waxay gaadhay heer guriga qof kasta uu ku dhuunto marka qorraxdu dhacdo. Bishii Nofembar 9, waxaa dhacay dilkii ugu naxdinta badnaa ee abid dunidu aragto, kaas oo ka dhacay qol xidhan gudihiisa. Mary Jane Kelly, oo ahayd gabadh dhalinyaro ah oo aad u qurux badnayd, ayaa maydkeeda laga helay qolkeeda yar ee Miller Court. Maadaama dilaagu uu joogay qol xidhan, wuxuu haystay dhowr saacadood oo uu dhibanaha ku samayn karo wax kasta oo uu doonayo. Markii boolisku albaabka jibiyeen, waxay la kulmeen muuqaal qof kasta oo arkay uu miyir beelay. Jidhka Mary Jane gebi ahaanba waa la furay, xubnihii gudaha sida wadnaha, sambabada iyo caloosha waxaa la dhigay sariirta hareeraheeda iyo miiska dushiisa. Hilibka wejigeeda waa laga soo fiiqay, naasaheedana waa laga gooyey. Wadnihii gabadha ayaa la waayey, iyadoo loo maleeyey in dilaagu uu qaatay si uu u cuno. Dilkan wuxuu ahaa kii ugu dambeeyey ee dhabta ahaa ee loo qoondeeyey gacanta Jack, isagoo muujiyey cadhada iyo waalida shaydaankaas. Booliska Scotland Yard waxay noqdeen kuwa lagu jeesjeeso guud ahaan dunida. In ka badan 2,000 oo qof ayaa baadhid lagu sameeyey, 100 qofna waa la xidhay, laakiin ma jirin wax caddayn ah. Waxaa la soo saaray eeyaha urta raaca oo lagu magacaabi jiray Barnaby iyo Burgo, balse xataa eeyahaas waxay ku dhex lumeen ceeryaamada London. Boqoradda Ingiriiska ee Victoria ayaa warqad u soo qortay wasiirka arrimaha gudaha iyadoo ka codsanaysa in dilaaga si degdeg ah loo qabto, waayo sumcaddii boqortooyada ayaa luntay. Waxaa la tuhmayey in dilaagu uu yahay nin magac leh, waayo mar kasta wuxuu awooday inuu booliska ka baxsado. Sirtu waxay noqotay mid madow, dilaaguna wuxuu u muuqday inuu leeyahay awood ka sarraysa tan bini'aadamka, isagoo ku dhex milmay mugdiga isagoo aan raad kaga tagin. Tuhunka ku saabsan cidda uu yahay Jack wuxuu gaadhay meel kasta. Dadka la tuhmayey waxaa ka mid ahaa Aaron Kosminski, oo ahaa nin maskaxda ka jiranaa, Montagu John Druitt, oo ahaa nin aqoon sare leh, oo maydkiisa laga helay webiga Thames wax yar kadib dilkii ugu dambeeyey, iyo xataa dhakhtarkii gaarka ahaa ee boqoradda Ingiriiska. Waxaa kale oo jiray dad rumaysnaa in dilaagu uu ahaa nin ka shaqaynayay gowraca xoolaha oo aqoon u lahaa mindida ama dhakhtar qaliinka ku takhasusay. Muddo dheer kadib, sannadkii 2014, cilmi baaris lagu sameeyey maro dhiig leh oo laga helay Catherine Eddowes ayaa lagu sheegay in la helay raadka hiddaha DNA ee Aaron Kosminski, laakiin cilmi baaristan weli dad badan ma rumaysna. Sirtu ilaa maanta waa mid aan si buuxda loo xallin. Jackna wuxuu ahaa qofka kaliya ee 100 sano kadib weli magaciisu naxdin ku beero dadka. Maalmihii dilalka naxdinta lahaa waxay u istaageen si lama filaan ah kadib dilkii Mary Jane Kelly. Jack dib looma arag, warqad dambena ma soo qorin, isagoo ku dhex lumay taariikhda. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin inuu dhintay, inuu isdilay, ama in lagu xidhay cisbitaalka dadka waalan. London dib ayay u neefsatay, laakiin dhibaatadii uu ka tagay Jackkii jeexjeexayay, dadka waxay beddeshay habka dambibaarista ee dunida. 136 sano kadib, dalxiisayaal badan ayaa weli taga xaafadda Whitechapel si ay u arkaan jidadka uu dhiigga ku daadiyey. Jack ma noqon dilaa caadi ah, balse wuxuu noqday dilaagii u horreeyey ee dunidu aqoonsato, dilaaga taxanaha ah, serial killer. Sirtiisii wuxuu ula tagay qabriga, isagoo ka tagay magac dunida naxdin ku beera habeen kasta oo ceeryaamo ay London qabato. Haddii aad marayso jidmarada madow ee London, weli waxaad dareemi kartaa hooska Jack, ninkii aan marnaba wejigiisa la arkin.